مدن يا مروين ساكا واقا بريا قرحة بلاتي ويكبر عريا برخة بدن تهي اللي هي سنادي كوشرني هلكن كوح برشدا أنا جو كهاد ليا أفكار هذا قرن جبياشة وحين نقول سود وين يا بوذا علمي عقلك وحين نقول سود وين يا هو يكبحنا هذا المستقبل وحين نقول سود وين يا برتاي ففورك المسكعة وحين نقول سود وين يا برتا لقو توبره جامياش المستقبل كمان تبر وحين نقول سود وين يا هو يدا جامعة سومال لا نعم waxaan si gaar ah si go'nimo loo soo dhaweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ah astaanta muwaadiniinta dalka siday jaamacadda Camud u tahay astaanta tacliinta sare ee dalka doorkan madaxweynaha iyo waftigiisa kuma soo dhaweynayno oo wax iyo caleemo qoyan ee qura ee waxaan ku soo dhaweynaynaa cilmi iyo hal abuur lagu gaarayo riyada dalkan iyo rajada dalkan maadaama halku dhiga xukuumaddiisu ahaa horaa loo soconaya mudane madaxweyne annagoo ku qalabaysan aqoontii hore loogu soconayay waxaan rabnaa in laga faa'iidaysto hal abuurka iyo farsamada dadkeena mar labaad waxaan bogaadinayaa madaxweynaha jaamacadda Camud Professor Salaaman Axmed Guuleed waayo maamulkiisa iyo maareyntiisa ayaa nooga jawaabay su'aashii ahayd goormaynu jaamiciin noqonaynaa maanta waxaynu nahay jaamiciin waxaynu ku faraxsanahay inaynu dhamayno himilada madaxweynaha jaamacadda Camud oo ahayd inuu soo saaro boqolaal ka miiqda hoggaay aqoonyahanada iyo hoggaamiyaasha Soomaalida oo maanta ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ahaa ardaygii madaxweynaha jaamacadda Camud waxa mahadnaqa ugu qurux badan ee ku xadhan qalbiyadeeda naga hantiyay waalidiintii iyo macallimiintii sababta uu ahaa inaynu nolosha micna u sameeyno sahanka uu ahaa inaan martabad sare meeqaam sugan gaadho sahalka uu ahaa guushayda saldhigga uu dhigay geediga mustaqbalkayga haddaynu nahay qalinjabiyaasha maanta waxaynu qalbiga ku haynaa 16 sannadood ilaa 19 sannadood oo soo baranaynay sida loo wajaho duruufaha nolosha waxa xiskayga ka bixi karin xiisadii wacnaa iyo maalmihii xusuusta lahaa xilliyadii aynu noqonnay ardayda samirka iyo macallimiinta xilkasnimada xogta iyo khibradda muddadaas oon ka helnay waata nooga jawaabtay isweydiinta timaada munaasabadaha qalinjabinta ee tidhaahda dhammaantii shaqo ma helaysa haddii aynu nahay qalinjabiyaasha maanta ma rabno inaanu maqalno dhammaantiin shaqo ma heli kartaan haa waa run dowladdaydu dhammaanteen shaqo nama siin karto laakiin shaqo waan abuuran karnaa waxaan u baahanahay in kor loo qaado dowladda waxaan uga baahanahay in kor loo qaado barnaamijka shaqo-gelinta iyo shaqo abuurka haddaynu nahay qalinjabiyaasha maanta axdigaynu dhiganaynaa waa inaanu isdhiibin oo inu noqon isma dhiibayaasha nolosha haddii aanu isticmaalno curitaankeena iyo awoodaheenna kama cabsan karno mustaqbalka shahaadada maanta halkan oo ka qaadanaa keligeed inagama iminayso sidaa daraaddeed waynu hirgelinaa kalsoonideenna tijaabinaa hafikirkeenna iyo halabuurkeenna inakoo muujinaynaa habdhaqan suuban iyo xilkasnimo ballanteennu waa inaan taariikhda wax ku biirino waxna ka beddelno waayo isbeddelka laftiisa ayaa ku jira gamcaheenna iyo garashadeenna inuu qofku gaadhi karo isbeddel iyo rabitaan waxaa markhaati inoogu filan madaxweynaha horteenna fadhiya
oo shalay ahaa arday reer Camudeeda maantana ah madaxweynaha dalka markhaatiga nooleen haysanaa waa madaxweynaheena mudane madaxweyne annagoo ah qalinjabiyaasha iyo adigoo ah madaxweynaha dalka labadeennu waxaanu ka simannahay inaynu dhabayno riyooyinkii ahaa inaan anigu jaamici noqdo aad noqoto hogaamiyaha dalka sidaa daraaddeed waa inaan dowladdeena waxaan uga baahannahay inaan ka baxno faqriga iyo saboolnimada una aan baxno iskaashiga iyo isku filnaanshaha waa muhiim inaynu midayno hadafka iyo hawsha si loo maareeyo himilada dalkanu leeyahay mudane madaxweyne anigu waxaan ogsoonahay inta tacabka dalkana aanu gelinaa yahay natiijada siduu beri noqon doono gabagabadii waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wabillahi